maanta waxaan idinla wadaagayaa waxa weeyaan qiso Allah subxaanahu wa ta'ala uu kaga hadlay suuradda suuratu al-A'raaf waxaana weeyaan qisadii shaydaanka ibliis iyo maaragtay nabiyullaahi aadam qisadooda Allah subxaanahu wa ta'ala sidoo ogtihiin markuu nabiyullaahi aadam uu abuuray uu sharfay waxaabuu ku sharfayna waxaa ka mid ahaa in malaa'igtiisa uu ku amray inay u sujuudaan nabiyullaahi aadam sa quraanku inoo sheegay meelo fara badan oo quraanka kamida Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay in ibliis markii alle amarka fare uu iska diiday malaa'igtii kalena u sujuudeen Allah subhanahu wa ta'ala aayadan smaartay suuradu al-A'raaf aayada 11 waxa Allah subhanahu wa ta'ala walaqad maaragtay walaqad khalaqnaakum thumma sawwarnaakum thumma qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa ibliisa lam yakun min as-saajidin ibliis uu iska diiday inuu sujuudo ilaahay markuu weydiiyay ibliisna wuxuu ku ibliis maxaad u sujuudi weyday ibliis wuxuu ilaahay aniga ka fiican buu asjudu liman khalaqta diina ilaahu wax dooqa ka abuurtay ayaan sujuudaya uma sujuudayo marka qaar kood wuxuu ana khayru minhu ana ka khayr badan khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min diin dooqaad ka abuurtay anigana waxa iga abuurtay maartay dabsa darteed isla weynaada wii iskibriyay wii iscaajiyay waxa soo dhanna waa dhaqana aan fiicnayn marka inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala sadamaantiin boogtiin uu ka soo iriyay meesha uu ibliis joogay waxaanu nabiyullaahi aadam ku yiri aadam oo ninka maartay ibliis kaas iska ilaali adigii reerkiina yaanu idin fidnayn inta ka hor ibliis uu soo dhaartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala codsi quru weydiistay intaan la iriyay wuxuu weydiistay Ilaahay waxaan rabaa inaad ii ogolaato in aan maartay adduunka ku noolaado ilaa iyo maartay qiyaamaha Ilaahay uu ka diido wuxuu ogolaaday laakiin ilaa maanta qiyaamuhu dhacayo in ibliis adduunkan joogo sadaradeed ibliis uu sheegtay Ilaahay uu dhaartay wuxuu la aqodanna lahum siraadaka almustaqim fabima aqwaytani ilaahu luminta adlumisay darteed la aqodanna lahum siraadaka almustaqim tariiqa toosan baan u fadhiisanaya thumma la aatiyannahum min bayni aydihim xagga hore iyo xagga dambe min khalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wala أكثرهم شاكرين عدكم مهدنا قدون تامجرتو سعدت الله سبحانه وتعالى مركو حاكو دارتي إبليس إلهي وإريه سندين شيء آدم من الجنة كي وحنا الجنة كله مارت يا آدم بولد إن هذا عدو لك ولزوجك كاسي عدو كوي هذه حاس كاغي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني إذن كسو صار الجنة طبعا عد مالحون أتقاعدين وكاسدرت إبليس شقدي سيبو بلاوي سدد أكتهين شقدي وغوري سوكو قوليستي waxay ahayd dabinkii ugu horeysay ku guuleystay waxayduna aadam iyo xaawo ku guuleysto inuu ka soo saaro jannadii ilaahay geed buu u diiday inuu cunaan sadamaantii boogtiin geedkii ibliis wuxuu uga dhaadhiciyay haday cunaan ma nahaakum rabbukum an hadhihi shajarati an tilkuma shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wuxuu ama wad noolaanaysan waligiina dhiman maysan hadaad geedka cuntaan ama malaa'ig baad noqonaysaa ee ku fiirsada malaa'igta aadam daawad ogtay in malaa'igtu sujuudi isaga la karaamay wuxuu ka rabay malaa'ig jannadana in lagu noolaanayo uu ogaa inaanu dhimanaynin marka muxuu laakiin shaydaanku waswaasiyo waswasa lahum ash-shaydaan baa waswaasiyo wuxuu ku tuurayo akhu qasamahuma inni lakum alla min an-nas in ba suuradan ku timid wuxuu ugu dhaartay inuu tala fiican wado oo xumaan u wadi marka aadam waxa ku yaraa marigii muusan filayn inuu qof been ku dhaaranayo marka saas uu ogolaa uu aqbalay ala kulli hal uu waswaasiyay shaydaan uu soo saaray markuu shaydaan ka markii uu shaydaan geedkii cunsiyay Allah subhanahu wa ta'ala jannadii ka soori iyo xaawiye aadanna waa laga soo saaray ibliisna waa la soo eriyay intii halkan la isugu keenay waxa eriyada marka inta adduunka joogtaan hadduu ibliis ad diidaan dariiqiisana binaadmiyo jannaad gasheen haddaad ibliis raacdaanna naar baad gasheen iska ilaaliya cadowgiidu yahay idinkii reerihiinaba kala dagaalama shaydaan iyo dhaqankiisa ka dagaalama halkan al-islaam marka shaydaanku shaqadiisa uu qabto shaydaanka shaqadiisa go'ad hadaf quluulay gool quluulay arin quluud yoolka quluulay shaydaan waxa weeye bini'aadmiga oo dhan naarta u raacaan ilaahayna saas ugu soo dhaartay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay inuu shaydaanka u hirgashay maxaa la yiraahdaa in qorshihiisa saasa ilaahay subhanahu wa ta'ala suurada saba wuxuu noogu sheegay walaqad saddaqa alayhim ibliisu ظنه فاتبعوه إلا أن يروا مؤمنون بقاعدة انتي بدنا دم بن آدم ويراعن
markuu ibliis dhaaranayay ilaahay u dhaaranayay ismuu lahayn bini aadmi oo dhan baa ku raacaya laakiin xaqiiqdu waxa weeyaan intii badnayd bini aadmiga badankiisa ibliis bay raaceen walaalayaal markaa waxaynu ka faa'iideysanaa qisadan waad iska wada taqaanaa waa qiso mashhuur ilaa muddo dheer laynooga sheekeynayay qofka qur-aanka yaqaanaana wuu ogyahay qiso ilaa 5 suuradood bay ku timid ilaa suurado fara badan bay ku timid oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlay qisadan uu kaga hadlay ama iyadoo badan uu kaga hadlay ama iyadoo yar uu kaga hadlay laakiin uu keenay marka waynu wada naqaanaa qisada waxaynu ka faa'iideynaa waxaynu ka faa'iideynaa cadowgeena kuwaad labaad saddexaad afraad cadowga quraynu leenahay waxa weyn waa ibliis waan markaa ibliis ka dagaalanaa aananu la dagaalanay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inuu shaydaanku cadow inoo yahay fattakhiduuhu caduwa cadow ka dhigto inuu waxa kale inuu ka faa'iideysanaa suuradan dariiqyada shaydaanku isticmaalo waxa kamid ah kow inuu dadka maaragtay dhaqanka ka fiican ka siibo saadarteed dhaqanka fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha ka dambeeya aayadahan yani oo qisada oo nabiyullaahi aadam wuxuu inoo sheegay 3 dhawaaq ayaa ku jira 3 dhawaaq waxa kamid ah bini aadmigu inay is asturaan oo aanay dhaqan xumo la imanin oo aanay isqaawinin saadarteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay arinta ugu horeysa ya bani aadam qad anzalna calaykum libaasan yuwaari sawaatikum warishan walibaasu taqwa dhalika khayr dharka la xidho in dhar fiican la xidho oo aan la isqaawinin taas weeyaan shaydaanku way xaggaas dadka ka soo gala laba in waqti kale la inoo sheegay waxa weeyaan inaynu xadka ka bixin wax kasta inuu sameeyno inaan ummad dhexdhexaad noqono hadalkeena in maxaa la yiraahdaa waxaynu cunayno waxaynu cabayno waxaynu xidhanayno waxaynu dheeganayno xitaa xagga diinta iyo dadku sheegista inay qadiyadana dhexdhexaad noqoto waa shaydaanku dadka wuxuu adeegsadaa maruu xadka ka saaro waana arki kartaan maanta xarakooyinka ka baxay xadka ka baxay mashaakilaadka maanta caalamka islaamka xitaa ka jira qayb weyn bi waxa ka maartay tadarufka diiniga iyo xadka dheer dhinaca fog laga gaadhay xagga diinta arinka ugu dambeeya haday dadka bini aadmiga ay raacaan aan shaydaan waxba ka qaadi karin oo hadalku ilaahay leeyahay dhawaaq ilaahay noogu sheegay suuradda ya bani aadam imma ya'tiyannakum minni rusulun haday rusulun minkum rusul idinka idin kamid haday idin yimaadona bini aadmina faman tabi'a qofkii raaca rusushaasi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun dib ikuma dhacayso cabsi kuma dhacayso murugo kuma dhacayso aakhira markay tagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa geliya qofkii caasiyana waa dhinaca kale naar buu mutaysanaya adduunkana wuxuu kamid ahaanaya xisbiga shaydaanku kamid noqonaysa daraadeed waa inaynu haddaynu muslimiin nahay dadkeena diinta islaamka alle kusoo dejiyey waa inaynu qur-aanka ku dhegnaa waa intaad qur-aanka haysataan dhacdooyinka noocan aad akrinaysaan way adagtayna dhibiina soo gaadho saadarteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegay qur-aanka xisbiga shaydaanka waxa gala ودك الذكر لا ومارت استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم من ذكر الله سورة المجادلة كشيء أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أنا لا دجالنا طريقة صحنا نقبسنا الدين تنا دراسات علمية سنقصمنا قرآن كنا نقبسنا دين ساسمنا الشيطان ونكاد خاننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته